markii haddaba ciidamada Soomaaliya lagu soo jabiyay dagaalkii Soomaali galbeed xaalad cakiran ayaa soo wajahday dalka Soomaaliya iyo maamulkii madaxweyne Maxamed Siyaad Barre waxaa cadayd in niyad jab weyn oo siyaasadeed uu ku soo wajahan yahay dawladdii madaxweyne Maxamed Siyaad Barre wasiirkii gaashaandhigga ee dawladdaasi Maxamed Cali Samatar waxa uu sheegay in xilligaasi ay u cadayd in dhaawac weyn uu gaaray sumcaddii hogaamineed ee Maxamed Siyaad Barre dadka qaar waxay yiraahdaan haybadii dawladda Soomaaliya iyo tii hogaamineed ee madaxweynaha Maxamed Siyaad Barre waxay dhamaatay dagaalkaas ka bacdi arintaas iyada ma qabtaa fikradaas dhamaatay ma qabo laakiin kulliba waa wiiqantay dagaalkaas wuxuu keenay yani weakness waxa arintaas ku raacay Axmed Suleymaan Dafle dawladdii jabta dagaal waxa loo yaqaan inay dawladdu baabado waa gartay markaanu sii taagnayn muddo aanu sii taagnayn horta raganimo ahayd raganimo aan la filayn bay ahayd Carter baa wuxuu ku yiri ummad waxa tihiin buu yiri Maxamed Siyaad wuxuu ku arkay markii uu dhintay Saadaad qabrigiisa oo la isugu yimid odayaashii Denmark adduunku iyo ku kulmeen wuxuu yiri waxa tahay buu yiri ummad adag oo adkaysinkeedu oo aad u badan yahay baa tihiin waa gartay haybadun ma aha inaynu jabnaabay ahayd oo sidaa u dunnaabay ahayd laakiin maynu dumin midaynu sii raaqraaqayn Axmed Suleymaan Cabdalla waxa uu sheegay arrin aan hadda ka hor la maqlin oo ahayd in dagaalkii Soomaali galbeed kadib markii la soo jabiyay ciidamada Soomaaliya uu madaxweyne Maxamed Siyaad Barre shir isugu yeeray golihii sare ee siyaasadda oo ka koobnaa 5 xubnood uuna u sheegay inuu xukunka iskaga tegayo waa gartay marka ma ahayd waqtigaas markii dagaalkii laga soo laabtay ma kula ahayd inuu xukunka si nabada uga tago madaxweyne Maxamed Siyaad Barre waabu yiri waan ka tagaya anaga diidnay goormay ahayd markii laga soo noqday ee ciidamadii soo noqdeen yuu isugu ka yeeray guddiga siyaasadda isugu ka yeeray wuxuu yiri anigu waan tagayaa waana inaan tagaa aniga la eeganayaa buu yiri aniga yaa la eeganayaa focusku anu isaaray colaadda anay saaran tahay aniga idinka degaya dawladdii iyo qarankii wada marka intuu soo shiriyay golihii siyaasadda ayuu yiri dagaalku waa laga soo laabtay aniga ayaa maartay bartilmaameed noqonaya waan ka tagayaa Ismaaciil baad weydiin kartaa marka guddiga siyaasaddu kamid ahaa xaynka meedin yidhi Samatar baad weydiin kartaa raggii kale aad weydiin kartaa ilaha guddiga siyaasadda inta nool kolay labadaas waa nool yihiin saddexdayada malaa ku nool lahay baan u malaynaya waa gartay marka maxaad uga diideen waxaan u diidnay waxba maan wadi kareen waayo ummaddu weli isagay ka dambaysay isagaa figure headkoodii ahaa isagaa maxaan ku idhaahdaa mobilizing factor koodii ahaa isaga maxaan ku idhaahdaa ummaddu ay ku jahan jirtay annaga markaa waxaan noo qaadan lahayn niman khaa'iniina oo odaygii maxaan ku idhaha riday ma yidhahdeen odaygaa isriday oo odaygaa maxaan ku idhaahdaa annagu sidaas baan u garanay dabeedna waa dib ama aynu wada dhacno oo iska dareer rabaan shaydaanka qabsanaya qabsaday ama nala joogo Axmed Suleymaan Cabdalla waxa uu markhaati ahaan u qabsaday labada xubnood ee kale ee ka tirsanaa golahaasi siyaasadda Maxamed Cali Samatar iyo Ismaaciil Cali Abakor ee xilliga nool Maxamed Cali Samatar oo ogolaaday inuu barnaamijkan ka qayb qaato ayaa ii xaqiijiyay arrintaasi waxay ahayd 78 ma sugno hadda bishii ilay Febraayo ama Maarso ma qarmadeeyeen wuxuuna yiri haddii looga eego dhanka militariga waa fiicnaa waana guulaystay laakiin siyaasiyan ayaan arrinta ku fashalnay sidaa awoodeed marka siyaasaddii anaa hogaaminayay waan ka tegayaa meesha imise qofaa ahaydeen halkeebaa shirku ka dhacay maxaa lagu jawaabay markii uu sidaa yidhi waxaan ku leeyahay horta qolada kale الله نحرس حسين كلمية إيو إسماعيل علي أبكر إيو أحمد سليمان حمر بكل شيء لكن أنا أصدق وحنسكو على قدي ميل جدها دلكا وحيا المركز أنا هرجيس جوجي حمر بجوجي لو ذادنا أرنت عنو إيسو جيدي أنا واكديدي صاحب بدينا وان جارسيي أيجانا صدق علي كديدين وحيرهن ama waa ka wada tagaynaa meesha ama waa wada joogaynaa maxaad uga diideen markuu soo jeediyay talada maxaad uga diideen macquul ma ahayn asaga keliya responsible ma aha haddii waxay khaldameen ama wax xumaadeen responsibilitada waa la wada qabnay marka inuu victim u noqdo wax uusan keligiis
lahayn ma habbooneen. balse cusmaan maxamed jeelle oo ka tirsanaa golihii sare ee kacaanka waxa uu ii sheegay in laga yaabo in tallaabadaasi aysan dhab ka ahayn maxamed siyaad barre. maya horta mugidaalka laga soo laabtay mugidaalka mugiligelayay isbitaal baan ku jiray oo jalmad baan joogay xisbi baa meesha jiray guddiga siyaasadda ayaa jiran hadow iyaga ku jiri ma ahan mana maalin runtigaanu dhahay saaxiibkii maxamed siyaadno u malay mahayo haddii anigu isagoo hubo in maya la dhihi doono bal iska dhigu ku yiri mooye laakiin nin niyad ahaan inuu ka dhigo soo jeedinayo kuma aqoonin mana anaan maalin dhiimana sheegin gobdhoon manaan ahayn. 9 bishii abriil 1978 oo ah hal bil uun kadib markii ciidamada Soomaalidu ay ka soo baxeen gobolka Soomaali galbeed ayaa qaar ka tirsan saraakiishii hogaaminaysa ciidanka Soomaalida ee dagaalka ka soo laabtay ay isku dayeen inay afgambi ku tuuraan dawladdii uu madaxda ka ahaa Maxamed Siyaad Barre. saraakiishaasi waxaa ka mid ahaa Korneel Xuseen Ciro iyo Korneel Cabdulaahi Yuusuf Axmed. saraakiishii afgambiga hogaaminaysay waxay ku guuldaraysteen inay hadafkooda ka dhaadhiciyaan badi saraakiishii sare ee wasaaradda gaashaandhigga iyo qaybaha xoogga dalka xukumayay. qorshaha afgambiguna wuxuu noqday mid ay goor horeba ka sii war hesho dawladda Soomaaliya waxaana lagu burburiyey muddo saacado yar gudahooda. waa markii ugu horreysay dadweynaha Soomaaliyeed ay arkaan taangiyo colaad darteed u dhex gurguuranaya bartamaha magaalada Muqdisho. maxamed abshir walde ayaa iiga sheekeeyey sidii uu ku fashilmay afgambigaasi. iyadoo inqilaabkii lagu tala jiro xagga jubbada sare hargeysa iyo muqdisho iyo beledweyne iyo dhuusamareeb iyo intaasoo dhan iyagoo isog ayaa nin la degdegay baa la yidhi ayaa guruub la degdegeen iyagoo ka baqay in Siyaad Barre uu ogaaday ama ogaan doono iyagoon kuwii kaleeto u sheegin oo kala tashan malaha isyiri aad baad isugu kalsantihiinoo waa qabanaysaan hadda waana tii lagu guuldaraystay lana burburiyey. madaxweyne maxamed siyaad barre ayaa saxaafadda caalamka u sheegay in 20 ka mid a saraakiisha afgambiga damacday lagu dilay dagaalka 34 kalena la dhaawacay. si kastaba ha ahaatee lumintii Soofiyeedka niyadjabkii ku dhacay ciidamada iyo isku dayga afgambi waxay sii xoogaysay ku qanacsanaan la'aanta shacabka Soomaalida ee siyaasadda gudaha iyo tan dibadda ee dawladda. ka hor intii aan Soomaaliya lagu soo jebin dagaalkii ka dhacay Soomaali galbeedba koox siyaasiyiin oo mucaarad ah ayaa ku shiray magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxayna hindiseen urur mucaarad ah oo ka soo horjeeda xukuumadda Maxamed Siyaad Barre markii ugu horreysay taariikhda ee xukunkaasi. maxamed abshir walde ayaa iiga warramaya sidii uu ku dhashay ururka Somali Salvation Front SSF. gruubkii waxay ahaayeen xasan cali mire iyo yuusuf cali haaruun ayaa waxaa u tegey haddana ciidankii saraakiil inqilaabkii ka baxsatay oo uu ka mid ahaa cabdulaahi yuusuf ayaa Nairobi tegey. shirar baa halkaa lagu qaatay waxaa lagu heshiiyey markaa in rasmi laga dhigo oo halkaa laga dhiso lagu biiro ururkii awalba kooxdu ay uga dhawaaqday Nairobi isagii laftiisii in la sii wado laakiin maadaama aan Nairobi si rasmiya looga dhawaaqi karin oo Kenyaanku ayan ogolayn waxaa lagama maarmaan noqotay in la tago meel la isku caddayn karo laguna shaqayn karo. taasina waxay noqotay Ethiopia iyadoo la og yahay taariikhdii hore oo jirtay iyo iyadoo markaas dagaal aad u kharaar oo aad u xun laga soo baxay oo weli uu dhaawiciisii dhan walbaba uu jiro ma ayan dhib yarayn go-aanka halkaa lagu aaday. markii dambe oo Addis Ababa la tegey oo Congress laga dhigay oo 78 bilihii ugu dambeeyey dad badan baa isugu yimid oo Soomaaliya yani waxaa loo arkayay urur qaran inuu noqdo oo gobol walba leh oo beel walbaba leh ayaa isugu yimid. muxuu ahaa waa tii Mustafa Xaaji Nuur gudoomiyihii u horreeyey loo doortay Umar Sariin gudoomiye ku-xigeenkii uu ahaa. xasan cali mire waxa uu ka mid ahaa aasaasiyaashii ururka Somali Salvation Front. dhibaato keentay waxaa loo aasaasay in laga hortago nidaamka ka dhismay Soomaaliya. waad ogtahay anigu wasiir baa Maxamed Siyaad Barre iga dhigay waa ka warhaysaabay la tahay wasiirka tacliintaan noqday laakiin waa diiday waxaan idhaahdaadan dastuur baan samaynay intayadii ministerada ahayd ku heshiinay waa u geynay waa keeni waaye
saddex un baan ku noqonay markii dambe inta diito ka tagtay markaan ka tagnayna waxaan u nimid rag naga soo horreeyey oo le war maxaynu samaynayo maxaa la qabtaayo saasay ku timid waxaa la yidhi inta haddii aan wax tari karno dalka waa wanaagsanaan lahayd inaan samayno urur soomaaliyeed oo aan qabiil lahayn oo ah mabdaiisu fiican yahay intaasun baan markii ku heshiinay horraantii sanadkii 1981 ayaa jabhaddii SSF ay isku beddeshay SSDF waxayna ahayd jabhad inta badan ku dhisan mabda ayna ku wada jireen siyaasiyiin ka soo jeeda beelo kala duwan oo Soomaali ah Maxamed Abshir Waldo ayaa iiga warramay sidii isbeddelkaasi ku yimid SSF markay ka bedelantay SSDF ay noqotay diidaas waxaa ku soo daray group hor leh oo muxuu ahaa iyagu hanti wadaag weliba shuuciya ayaa ku soo biiray SSDF oo uu hogaaminayay ninkii la oran jiray cabdiraxmaan caydiid qoladii Ethiopiaanka oo iyaguna shuuci ahaa iyo ruushkii oo ka dambeeyey ama easternkii ayaa ku khasbay SSDF in ereyga democratic la yidhaahdo lagu daro marka sidaasay ku noqotay SSDF Somali Salvation Democratic Front siyaasiyiinta haddaba xilligaasi ku biiray ururka SSDF waxaa ka mid ahaa Maxamed Faarax Jimcaale anigu SSDF baan ku biiray siddeetanaadkii bilowgii bay ahayd hoomaan ka tegey waxaan aaday seminar Itaaliya lagu qabanayay meeshaasi aaday aan aad dhib ku helay weliba exit visa aan dhib ku helay kabacdina Italian ka tegey halkaasaan tegey SSDF baan ku biiray isla sanadkaasi waxaa la aasaasay jabhaddii labaad ee hubaysnayd waa jabhaddii Somali National Movement SNM Maxamed Xaashi Cilmi waxa uu ka mid ahaa aasaasiyaashii ururka SNM waxa keenay waxa dhacay dhibaatooyin fara badan baa dalkii ka dhacay kibir baa yimid waa tii loo heesi jiray guul wada siyaad iyo magacaabihii garashada wax walba la gaadhay waxa badatay xadgudubkii baa batay kolkaasaa for instance kolka dadku Sacuudi Arabia iyo ka tago ay alaab qaataan berbera lagala wareegi jiro maraakiib la wareegay baa jirtay dadkii baa la iska xiri jiray waa la leyn jiray kolkii dambe arrin qabiil yar dadban ayaa xukunkiiba muxuu ahaa ayuu u wareegay kolkaa waxa wixii la filayay kolkii hore loogu raxleeyay muxuu ahaa gacankiina siyaad barre markuu cusbaa ayaa isbedelay oo dabeetana wuxuu noqday wax muxuu ahaa cunsuri iyo dhibaato badan ba ayaa meeshii timid kolkaa waxay noqotay dadkaygii kolkaa iskagaba tegay dalka ee u shaqo tegay Sacuudiga iyo dhulka carabta markaa dee iyana shaqooyin ka furraay waxay noqotay maxaad u shaqaysanaysaa xageed la tegay haddaad muxuu waxaad shaqaysato kolkaa taasaa keentay dhibaatooyinka dalka ka dhacay waxaanu ku bilownay shirar yaryar baanu qaadan jiray oo isugu imaan jiray guryo dabeetana tiiba cabashadun baa la isula yimid dabeetana halkii baa laga waday kolkaasay dabeetana waxay noqotay aynu xisbiba samaysano Sacuudigana kagamanaan dhawaaqi karayn oo ma ahayn meel xor waa muxuu ahaa arrimaha jabhadaha noocaasa kolkaa dabeetana England baanu kaga dhawaaqnay markii aan u diyaar garownay malaha muddo dhowr sanadooda wadnay ayaanu halkaa kaga dhawaaqnay dabayaaqadii 1989kiina waxaa aasaasmay laba jabhadood oo kale oo xoog leh oo kala ah jabhaddii USC United Somali Congress iyo jabhadda Somali Patriotic Movement SPM Cumar Xasan Gaalaguul waxa uu ka mid ahaa aasaasiyaashii ururka USC Professor Gaalaguul la yaqaana asaasi koowaad oo USC anaa keenay magaca anaa sameeyay instituutada anaa registraaray Rome ku registraaray ragna waa ila jireen laakiin waa uu la soo batay markii dambe waqti oo dalka dib badan ku jiray waxa loo asaasay yani marxaladda la marayo oo adag awadeed dib badanaa jiray dalka xukunka kan oo dib badan oo khasaaro u geystay sida looga baxo ee loogu laabto yani looga baxo xukunka ninka kaliya oo dictatoraha awadeed si yani loogu laabto demokrasiya awadeeda loo sameeyay waxaa haddaba jirta in la isku dayo in la mideeyo jabhadaha Maxamed Faarax Jimcaale waxa uu ii sheegay in dhibaatooyinkii hor istaagay jabhadaha badankood inay noqdaan kuwa qaran ay ugu weyneyd qabyaaladda waxaa adkaaday inay midoobaan waa adkaatay waxay noqotay inay laba jabhadood la ahaado oo laysu iman waayo afkaartii la isku keeni waayo si kasta oo loo dadaalay
waa laisu keeni waayey. SNM runtii waxay ahayd marka urur xoogaa ka madax bannaan oo hub badan iyo taangayaal iyo hub waaweyn iyo bahaysan oo looga arkayn dawladda midista khatar u arkimayn, laakiin waxaa dad gaar u degan oo meel banaankaa degan oo ismaamula oo urursan oo bay ahaayeen. SSDF waxay noqotay waa kala daadatay, xoogaa la saaray, midista xooguu saaray, wuxuu u saaray hub waaweyn oo isaga naftiisa baqatin gelinaya bay lahayd oo Liibiya iyo laga helay. markaa waxay noqotay ciidan lagu wareegsan yahay xeraysan oo aan xor ahayn oo sidoo rabo u dagaalamo sidoo u madax banaaneen dagaalkiisa. waxay noqotay ilaa waagi dambe ragii lagu laayay qaar waxa bishay dhibaata laga qabsatay oo hubkii laga wareegay. xasan cali mire waxa uu ii sheegay inay isku dayeen ururada in la isku soo dhaweeyo, balse ururka SNM ay ku gacan sayreen. xiriir wanaagsan baan la lahayn ururka la yiraahdo USC iyo SSDF. heshiis bay saxiixdeen inay mid ka noqdaan. waxaa naga diiday Siilaanyo oo London aan telefoon ugu dirnay. Siilaanyo London baan telefoon loogu diray, nin baaba 150 waagaas joogay shilin ka bixiyay lacag annana ama hayn. raggii ogaa qaar halka New York joogaa noo soo diray telefoon oo yiri anaga ninkiina qaan oo ka dhamaynayna keena. waa noo soo noqdeen waxa yiri naga diid. maxamed xaashi cilmi oo ka mid ahaa aasaasiyaashii ururka SNM isagu waxa uu leeyahay arrintu qabyaalad way ka baxsanayd, waxayna dhinacooda salka ku haysay inaysan talo siyaasadeed oo dambe la wadaagin hogaamiyayaasha iyo xisbiyada koonfurta Soomaaliya. waxa uu sheegay inay wada shaqayn la sameeyeen ururada qaarkood sida USC, laakiin mar walba ay taxadar ka qabeen isbahaysi qoto dheer. horta kolkaa hore waxaa jirtay SSDF oo Ethiopia bay iyagu nooga sii horeeyeen oo halkaas ay joogeen Cabdullaahi Yusuf baa u ahaa muxuu ahaa gudoomiye. USC beri dambe ayay soo baxday oo markii aakhir lixdii markii maxayna siyaad barro taag dareeyay ayay asaasantay. kolka SSDF ta iyagu waxay doonayeen israacan isku darsano, annaguna israac maanaan doonin SNM haddaanu nahay. dabeecadaha qaarkood baanaan kuba heshiis ahayn. kolka anagu waxaan inaan cooperation samayno oo iskaashano baa talada iyadu ahayd. Liibiyana waxay ku dadaashay in badan in la isku daro oo maalgeliso iyadu hubayso oo noqoto muxuu ahaa arrin xoog leh. laakiin annaga Cabdullaahi Yusuf ayaanan kalsooni badan ku qabin wax ku darsadkiisa. waxa isagu kolka horta isagu wuxuu ninka da'daasa ilaa maanta inuu madax noqdo ilaa Soomaaliya uu galo muu miyirsan. kolka tii oo uu ka sii da'yaraana waa ka sii daray oo caafimaad qabay. kolka waxay ahayd muxuu ahaa sida iyadabana muxuu ahaa koonfur waanu ku khasaaray oo Soomaaliyadii la isku daray waxaan anagu tirsanaa oo dhaba inaan ku khasaaray. yani waxaan la qaadan karin ayaa loo sacrifice gareeyay markii hore. way se garan waayeen oo Soomaali qaldaan baa jawaabtii noqotay. taasina niyadaan ku hayno dad wax lagu darsan karo inaan meeshaas ahayn baanu garanayn. bartamihii 80meeyadii dawladda Soomaaliya waxay u soo ekaanaysay mid talooyin badan ay faraheeda ka baxayaan. dhinaca kalena dawladda Maxamed Siyaad Barre iyo mucaaradkuba waxay labada dhinacba ku guuldareysteen inay wax wada hadal ah oo muuqda galaan. siyaabo badan ayaa haddaba lagu macneeyaa sababta ay dawladda Soomaaliya iyo jabhaduhu ugu guuldareysteen inay ka wada xaajoodaan haadaantii uu waddanku ku sii socday. Axmed Suleymaan Dafle ayaa iiga warbixiyey fikradda dhabta ah ee xukuumaddu qabtay iyo sida uu markaasi madaxweyne Maxamed Siyaad Barre u arkayay jabhadaha. gobonnimo doonna ma ahayn, gobonnimo dumis bay ahaayeen. jabhada ku sheeg. jabhadi waa jabhaddii mabda ku dagaalanta, waa jabhaddii xorriyaddeeda u dagaalan, maaha jabhaddii xorriyaddeeda dumisa ee dalkeeda la dagaalan. cid aanu la hadlin ma jirto. cid diyaar u ahaydna ma jirin. cid aanu la hadlin. ninka suuqa maraya iyo soo fadhiisin jiray miiska hortiisa, kursiga hortiisa ah sogaramis oo la hadli jiray. odayaasha qabiilada odayaasha maxaan ku dhahay baaxmistarka niman hortiisa fadhiisan waa yaryahay oo waqtigiisa la hadlin oo umuuraha dadka kala hadlin ama dagaaladii soconayay ama dhibaatadii maaragta waddanka ka jirta ma jiro.
wasiirada iyo mas-uuliyiinta kale ee dowladdaasina waxay ii sheegeen hadallo u dhow kuwa Axmed Suleymaan Dafle markii ay ka hadlayeen sababta ay xukuumaddu ugu guuldarraysatay inay la hadasho mucaaradka. Maxamed Cali Samatar iyo Cabdi Warsame Isaaq ayaa iiga sheekeeyey mowqifkii dowladda. Maxaa Maxamed Siyaad Barre ugu guuldarraystay jabhadihii soo baxay ee mucaaradka ay hubaysnaa inuu la heshiiyo? ayagaan diyaar ahayn dad isqanciyey ayaga cabdulaahigan hadde wuu isqanciyey maxamed siyaad marna maaragtay muxuu ahaa inuusan ay heshinayn ayuu maskaxda iska gashay marka qolooyinkan kale oo SNMT iyo ayagana haddee aragti kale ayaa maaragtay muxuu ahaa ayay hogaaminayay marka laba iskeenaysa oo fikirka annaga maaragtay waddanka midnimadiisii iyo wixii maaragtay hala dhowra ayaan leenahay ayagana maaragtay inay maxaa wadankii kala gooyaano dawladdaasna maaragtay la rido ayaa maskaxdooda keliya maaragtay ku buuxda marka yani dad maaragtay diyaar u ah ma ahayn Siyaad Barre ma isku day inuu la heshiyo inuu la xiriiro saad u qancinaysaa kuwa kula safar markaad tiraaho kuwan aan la heshiinaya aad la heshiisidee dariiqee kula heshiinaysaa yani jabhadaha waa lala hadlay waana lala hadli karay ma aha in laga aamusay totally in la ignorar garay waa lala hadlay qaar hadalkii waana qaateen waana ogolaadeen waana doodina waxbay ka galeen qaarna waa diideenoo halkooday taagnaadeen. marna ma ka wada hadasheen madaxweynaha xaaladda waddan ku socdo jabhadaha soo baxaya maxaan ku idhaha dagaalada socday waddanka iyo xaaladiisa iyo meesha ku dambayn kara marna ma ka wada hadasheen? maya u kaaday yani waan isku dayday maaha inaan isku dayin inaan la heshiino jabhadaha waa isku dayday waase suuroobe weyday jabhadaha qaarna aad bay u fogaayeen yani kuwa hadda goostay oo kale qaarna xoogaa waa ka soo dhawaayeen intaasoo wada hadal iyo la wada xaajooda waa ogolaayeen. dhinaca kalena jabhadaha laftigooda ayaan isku shuqlin inay iyagu dhinacooda wada hadal iyo xal raadiyaan si xataa ay guul diblomaasiyadeed ugu soo heeto dagaalkooda hubaysan. Maxamed Xaashi Cilmi ayaa noo sheegay in jabhadda SNM aysan marna isku dayin inay wada hadal la gasho dowladdii Maxamed Siyaad Barre. imanka kolkaad hargeysa aan maanta joogo saddexda galabtii baa dadka la xirayn jiray iyo muxuu afartii iyo meelaha ayaa dadka la xirayn jiray dad kibrey bay ahayn waxay ugu dhoweyd kolkii heshiiska ay wada galeen dawladdii Ethiopia halkuu annaga nagala bilaabi lahaa waxa weeyaan ayaa meel khalada uu ka bilaabay kolkaa guul bay tirsanayeen oo dabeetana waa kii dhulka soo mareeyay halkan muxuu hargeysa dhulka yimid kolkaa waxay u haysteen xaggooda dawaa farun baanu ka haynin jirne oo la qabqabanayo waxa ka khaldan nimankan dictatorsku kolkay meel gaadhaan runba ma helaan. dhinaca kalena Maxamed Abshir Walde oo ka tirsanaa ururka SSDF ayaa ii sheegay in dawlado shisheeye oo ay ka mid yihiin Mareykanka iyo Talyaanigu ay isku dayeen inay wada hadashiyaan dawladdii madaxweyne Maxamed Siyaad Barre iyo jabhadaha mucaaradka. waa la isku dayey marar badan baa la isku dayey shisheeye iyo Soomaaliba waa isku daydeen Soomaali baa jirtay dhowr jeer ku talisay dhexdhexaadin carab baa iyaduna ku talisay dhexdhexaadin talyaani baa ku taliyey dhexdhexaadin xataa Maraykanku 1982 anigii Xasan Cali Mire oo SDF ka socona iyo Siyaad Barre oo tegay America waxay ku taliyeen isma aanan arag isbuuca ayan kaayekeeyeen halkaa laakiin waxay ku taliyeen in dialogue la furo iyaga oo doonaya kana walwalsan ruushku inuu dib ugu soo noqdo Soomaaliya dagaalkii qabooba mar walbaba marna hadda Siyaad Barre diidanaa intii hore oo dhan oo aad malaha isugu kalsamaa intii dambana waxaa diidanaa guddoomiyihii SSDF ka diidanaa intaa keliya maahan howlo kaleeto oo badan oo aan qabo in wax looga bedeli lahaa iyada oo aan sidii hadda wax u dhaceen ayan u dhicin si ka wanaagsan wax isu bedeli lahaayeen ayaa iyaguna jiray oo aan hirgelin. taariikhyahanada Soomaalidu waxay ka siman yihiin in dawladdii Maxamed Siyaad Barre iyo jabhadaha labaduba aysan la imaanin fikrado lagu baajin karay dagaalkii iyo jihadii uu waddanku ku socday. inkastoo ay jabhaduhu ka sinaayeen mabda'ii ahaa inay xukun ka tuuraan Maxamed Siyaad Barre haddana waxay markii dambe iyaga laftigoodu ay ka baxsan waayeen in dhaawac soo gaaro hadafka iyo halkudhagyada qaran ee ay sheegeen inay ku dagaalamayeen
sida uu sharaxayo maxamed faarax jimcaale. kolley inta heshiis lagu yahay qofkii aan wax u qarsanay gaar wey, laakiin wax heshiis lagu yahay dastuur buu lahaa, program buu lahaa, in dawladdan la bedelo, laga diriro maamul wanaagsan iyo dimuqraadiyad iyo la soo celiyo oo barnaamijka noo qoran barnaamij noocaas ahaa. laakiin hadda problemku waxa weeye Soomaali baan nahay oo dastuur kuma ekaano oo nin walba si unbuu shaqeynay, ninba si buu shaqeynayay. guuldaradan siyaasadeed iyo cududda mucaaradka oo sii kordhaysay waxay keentay in ciidamada jabhadaha hubaysan ay si badheedh ah u qaadaan guluf ay dhul kaga qabsanayaan ciidamada madaxweyne maxamed siyaad barre. 27 bishii May 1988 jabhadda SNM oo markaas ugu cudud roonayd jabhadaha mucaaradka ayaa duulaan ku soo qaaday gobolada waqooyi galbeed iyo Togdheer oo ay taageerayaashoodu aad u degan yihiin. wejigii hore ee dagaalka ciidamada SNM-tu waxay qabsadeen gobolka Togdheer badankiisa iyo gobolka waqooyi galbeed oo ay ku jirto badi magaalada Hargeysa. ciidankii dawladdana waa la jiray, xeryihii milatarigana waa la go'doomiyey, waxaana dawladda Soomaaliya la soo diristay guuldarro weyn oo dhinaca ciidamada ah. kumanaan kun oo qof oo isugu jira rayid, ciidamadii dawladda iyo xubnihii jabhadda SNM ayaa ku dhintay dagaallo qaraar oo isdaba joog ah oo socday muddo 6 bilood ah. dagaalku waxaa kaloo uu keenay kumanaan kun oo qof inay u qaxaan dalka Itoobiya kadib markii ay ciidanka dawladdu bilaabeen inay diyaaradaha dagaalka ku duqeeyaan goobaha rayidku degan yihiin. jabhadda USC waxay bilowday inay magaalada Muqdisho si qarsoodi ah ugu soo daadgureeyaan ciidan hubaysan iyo xubno ka tirsan dhalinyaradooda dagaalanta. ciidankaas iyo kuwo kale oo uga biiray magaalada Muqdisho waxay ku dhaqaaqeen fulinta amarada madaxdooda oo ahaa inay rabshado hubaysan oo dil iyo dhac ah u geystaan saraakiisha iyo taageerayaasha dawladda, deganaansho la'aan iyo khalkhalna ka ridaan caasimadda. ammaankii magaalada Muqdisho ayaa cirka isku shareeray. maxamed cali samatar ayaa sharaxaya xaaladii jirtay xilligaasi. dagaalka xamar inuu soo gaaro ka furmo lagu dagaalamo waa khalad, waana muuqanaysay markuu gobolada marayay bay ahayd in tallaabo laga qaado. calaa ayi xaal taas rag kale u taallaa, aniga iima taalle. waxa weeye wixii baa kala daatay, xukunkii iyo cududii iyo awooddii ciidan ayaa yaraad. markaana mucaaradkii waxay heleen jaanis. galabnimadii maalintii Axadda ee 30 Disembar 1990 ayaa si rasmi ah dagaal uga qarxay xaafadda Wardhiigley ee bartamaha caasimadda Muqdisho. dagaalka oo mar kastaba la filayay ayaa ka bilowday saraakiil booliiska dawladda ah oo baabuurkii ay la socdeen ay ragga u dagaalamay jabhadda USC ku weerareen wadada tagta Villa Soomaaliya ee dhexmarta degmada Wardhiigley. ilaalada madaxtooyada ayaa kadibna tacshiirad huwiyey goobtii uu shilku ka dhacay, taasoo xarigga ka jartay xiisadii foolanaysay. 2 saac kadib markii ay rasaastu ka curatay magaalada Muqdisho ayaa idaacadaha caalamku ay soo xigteen afhayeenkii jabhadda USC ee magaalada Rome, kaasi oo ku dhawaaqay in ururkooda uu si rasmi ah u bilaabay dagaalka Muqdisho ka socda. fiidnimadii 26 Janaayo 1991 iyadoo ururka SPM ay Muqdisho kaga soo siqayaan dhinaca koonfureed, SNM-na ay qarka ula saaran tahay inay dul maraan ciidamadii aan cidina u maqnayn ee dawladda, ayaa jabhadda USC ay xoogga weerarkeeda saareen sidii ay madaxweyne maxamed siyaad barre uga salkicin lahaayeen Villa Soomaaliya, taasoo noqonaysa guushii ugu weyneyd ee ay gaaraan muddadii 28 maalmood ah ee dagaalku uu ka socday magaalada Muqdisho. galabnimadaasi ayaa laga itaal roonaaday ciidamadii dawladda, waxaana laga qabsaday xaruntii madaxtooyada. halkaasina waxaa ku soo afjarmay 21 sano oo madaxweyne maxamed siyaad barre uu ka talinayay Soomaaliya.